السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة شرفت بدن ملك استاد جوجتان وادكا سوغانتين عالمك عافيمات تاما فرحدي نولول وناكسن باندين رجينيا نينكن wuxuu yiri waxa kamid ahaa ragii ku dhacay balwaafeedkii siigada muddo badan baanan waday inkastoo shimbiri noqday muuqaalan ka daawaday kanaalkiina caafimaadka daryeelka caafimaadka nolosha oo ku badbaaday oo aan iskaga daayay siigada haddana waxa dhacday buu yiri anigu aad u nugul oo aad u baabaasan oo jirkayga aad u kala daadsan yahay baan haweenay guursaday haweenaydaas oo waliba haweenay hamadeeda iyo dareenkeeduna ay badan tahay hadaba wuxuu yiri marka aan u tago habeenkii aan isku tagno ayaa markiiba biyaha hore iga imanaya markay biyuhu hore iga yimaadaan ayaa waxaan arkaa buu yiri iyadoo farteeda isticmaalaysa oo iyaduna biyaha iskaga keenaysa markii aan weydiiyay waxa igu tiri buu yiri ima qancin karaysin oo dareenkayga iyo rabitaankayga iyo hamadaydu iyadoo aanay dhamaan ama iyagaanay markaa waxba iga iman ayaa adigu fulaysaa si markaa anigu aan isku qanciyo waa inaan fartan isticmaalaabay tiri arrintaas ayaa waxay igu tahay buu yiri inaan ceebtoodo oo aan xishoodo oo xataa markaa naftayda aad u canaanto in markaa haweenaydii aan ka furo oo aanu isfurnaan sidaa kaga tagana ma doonayo ciiriyo tiilaanyana waa la noolahay markasta dhibaatadaas ayay haysato kan gam ilaahay ayuu sheegaya ninkan xaaslaha ayaa aad u mahadsan yahay haddii aynu nimaadno jawaabtiisa arrintan waxa kowka ama qaladkan waxa kowka marka koobaad siigada ficilkan foosha xun sameeyana way maqlayaan natiijada maxsuulka iyo resultiga ka dhalata hadhowta markaad guursato in fashilka noocaasi uu kugu dhici karo oo xaaskaaga aanad qancin karaynin adigoo arkaya markaa iyadoo is qancin doonto haddaba waxaynu kula talinaynaa ninkan in marka koobaad uu isku dayo bal haweenaydan la joogta inaanu markiiba maadaama biyo bax degdega uu leeyahay maadaama xubinkiisu aanu awood lahayn maadaama aanu hawshan gogosha muddo badan wadi karin inuu isagu marka hore haweenayda waqti siiyo oo uu soo baashaaliyo oo jirkeega bisleeyo oo ilaa inta markaa hamadeeda iyo dareenkeedu ay ka boganayso ama ay ka soo dhawaanayaan waqti aad u ballaaran siiyo inuu farsamada barto inuu arrintaas waqti fara badan uu ku bixiyo ayaynu walaalka u sheegaynaa taasi waa tallaabada kaliya ee badbaadin karta ee xaaladan ka samata bixin karta iskuna day markaas ina dareenkaaga aad fogayso xilligaad gogosha ku kura jirto intaas aynu ku soo ururinaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.